حبيب كنا شفيعنا رسول كنا صلى الله عليه وسلم والله ما خلق الإله ولا برا خلقا ولا خلق كأحمد في الورى فعليه صلى الله ما قلم جرى اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليك الله يا حبيبنا يا رسول الله كصلي النبي والله وحن أحيسا ويكند كستا إن أن متقناي سيدنا وكاليدي سوهر فريستو أو متقناي سيرة النبي قرح دبنا صلى الله عليه وسلم إذن كشيكيو والله وانو حيسا والله وانو حيسا وانا مسؤولية إسارا وان أنقو إساساري إن متقناي أن إذن سو قدبيو سيرة داس قرح دبنا قيمها إيا قايها بدن وايو ومنهج كينا ووضدي نلوغا باهنا إن أينو مرنو ووضدي نلوغا باهنا إن أينو نلوشو كبرانو سبحان الله كنا مقرني سايا ودنا نلوشينا كنا سعودسينو الله أكبر إلهي دنبيدينا هدافو waxaynu qaybtii hore ku joojinay najaashi iyo ardul xabasha hijradii koobaad ee ay galeen muslimiintu halkaas u galeen aan su'aaladii weydiiyay ninka la dhihi jiray najaashi boqorka ka ahaa ardul xabash miyuu islaamay wuu islaamay laakiin islaamnimadiisu waxay ahayd mid qarsoon oo nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu dhintay waxa uu dhahay nin aad u qaaliya ayaa maanta dhintay sidaas awgeedna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu tukaday salaatul ghaib ayuu ugu tukaday salaatul ghaibna meynaan baraneenba sida loo tukado haddii markaas una nabigu sallallahu alayhi wasallam una najaashi dhiman lahayn nabiguna sallallahu alayhi wasallam markaas in tukan lahayn salaatul ghaib waxa la dhahaa yani qof ka fog oo dan isku meel joogin haduu dhinto sida loogu tukado weeyaan insha Allah mar gaara ayaan ka hadli doonaa soona gelin doonaa sharixina doonaa biidni Ilaahi jalla jalaaluhu ninkii najaashi ahaa wuu islaamay adiga ummadii ma garanaysaa muslimiinta asxaabadii u hijrootay asxaabadu markaa waxay ahaayeen 300 dadka muslimiinta adduunka ahba 100 kamida ardul xabash ay u hijroodeen yani 3 marka loo qaybiyo qayb kamida ardul xabash ay u hijroodeen labadii qayboodna nabiga sallallahu alayhi wasallam ay la joogeen sababta uu nabigu u hijroon waayayna waynu ka soo hadalnay hal su'aal oo kalaan hayaa najaashi mar hadduu islaamay muxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu soo diri waayay ciidankaas oo markaasi caawiya garab istaaga ma garanaysaa cadowgiisa iyo qurayshna ka difaaca sabab muxuu ugu soo diri waayay qaybta hoose noogu reeb insha Allah waxa ay sababta adiga kula muuqato sidaas oo u sameyn waayay najaashi waxaan kaga jawaabi doonaa insha Allah muuqaalka xiga ama waxaan kaga jawaabi doonaa isla muuqaalkan dhamaadkiisa hore u soco كسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قريش نبي صلى الله عليه وسلم مال اي كسو قلان وين رالي هذا قريش نبي صلى الله عليه وسلم مال الله لا مال اي كسو قلان اي وين صوبتو عقليدooda oo yar iyo fikirkooda oo aqliida ku dhisnayn oo markasto ay fikiraan ba buraya awgeed hadda waxay go'aansadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam inay dilaan kow inay ka siiyaan subhanallah nabiga in ay dilaan ay go'aansadeen Allahu akbar haddaba sidee ay ma garanaysaa nabiga u dili doonaan subhanallah nabiga horta miyaa la dili karaya wala dili karay sababtoo ah anbiyo ka horeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam sumeeyeen jirin oo la dilay zakariya kamida yahya ayaa kamida subhanallah wala dili karay soomaa ilaahi subhanahu jalla jalaaluhu waxa uu leeyahay wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil yani waxa ka muuqata in uu dhiman karayo nabiga sallallahu alayhi wasallam lana dili karayo subhanallah markii ugu dambeysay adiga gabagabadii intuu nabigu dhiman ka hor adiga xoogaa ka hor adiga dabayaaqadii ayaa markii dambe ilaahay soo dajiyay wallahu ya'simuka minan nas yani ilaahay ayaa ka ilaalinaya dadka oo cidina kuma dili karayso ilaa anagu aan ka oofsanayno nabigii ilaahayo inta ka horeysay aayadaas soo dageysayna nabiga sallallahu alayhi wasallam wala ilaalin jiray oo wuxuu lahaa bodyguard ama magaranaysaa dad ilaaliya oo asxaabta kamid ahayd radwanullahi alayhim hadda quraysh waxay go'aansadeen inay nabiga sallallahu alayhi wasallam dilaan way shirshiraan oo magaranaysaa Abu Talib waxa uu kamid yahay quraysh ragga ugu waaweyn subhanallah ragga marka la shirayna loo yeedhi jiray ee ugu horeeya ma garanaysaa invitationka loo diri jiray ayuu kamid ahaa Abu Talib laakiin maalmahan waxa uu arkay isagoo laga dhuumanayo sababtoo ah
abu aalib nebiga ayuu sal alla alay wasalam garabkiisa yahay oo uu caawinaya. sidaa awgeed waxay kala dhumanayaan shirkoodan ay ku go'aaminayaan qatla rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. abi aalib marka uu shikiyey war raggan afka isku shushubanaya ee igala dhudhumanaya waxaan maxay yihiin, adiga qof ku warramo ma waysid intaad noo sheehee. abi aalib waxaa soo gaadhay war ah in ay qorsheynayaan reer quraysheed in ay nebiga sal alla alay wasalam ka takhallusaan, ay kow ka siiyaan. subxaan allah. abi aalib nebigu sal alla alay wasalam warkaas ma oga. abi aalib markuu ogaaday arrinkii wuxuu u yeedhay dhalinyaro reer bani haashim ah, subxaan allah, ayuu u yeedhay, uu isku soo ururiyey, waxa uuna u dhiibay mid kasta oo dhalinyaradaas ka mid ah bir. waxa uu ku dhahay adigu hebelow abulahab daba istaag, adiguna hebelow abujahal daba istaag, adiguna hebelow weli daba istaag, adiguna hebelow hebel daba istaag. subxaan allah, ragga yacni u shiray inay nebiga dilaan daba istaag markay yimaadaan meesha kacbada. subxaan allah, birtaadana qarso ilaa aan anigu magaranaysaa kuu ishaarayo ama aan magaranaysaa idin dhahayo la soo baxa. subxaan allah, birihiina. nebigu sal alla alay wasalam warkaas ma oge. isagoo soo baxay albaabka ka soo baxay nebigu sal alla alay wasalam oo bannaanka u soo baxay oo allahu yaclam meel uu socday soo baxay, ayuu abi aalib ku dhahay tacaal ya bna akhi, kaalay inankii walaalkayo. uu soo qabtay gacanta wuxuuna ku dhahay reer quraysheed waxay go'aaminayaan in ay adiga ku dilaan muxamedow sal allahu calayhi wasalam. abi aalib waa gal, laakiinse waxa uu ilaalinayaa dardaarankii aabbihii ayaa ku dhahay calayka bimuxamed faina lahu sha'nun kabiir. muxamed adiga ayaan kugula dardaarmay, waayo wuxuu leeyahay arrin ayaa ka soo socda, arrin weyn ayuu soo wadaa ninkaasiye, adiga ayaan magaranaysaa kugula dardaarmay. dardaaranka aabbihii isagu waa gaal. imisaa muslimiina maanta dardaaranada waalidiintood la dardaarmaan intayna dhiman ka hor miyay fuliyaan? mee wallaahi weliba waxay isku dagaalaan hantida iyo guriga iyo mataqaanaa beeraha iyo waxaasay isku dagaalaan. isla markuu saa u dhintayba markuu joogo haye dardaarankii waayahay ma dhintay, dagaalkiiba halkaasu ka bilaabmaya. halkaas ayuu ka bilaabmaya oo walaalihii magaranaysaa isla dhashay ay ku kala tegayaan, oo walaalihii iskala dhashay ay isnacayaan. subxaan allah. ninkan isagoo oo gaal ah dardaarankii aabbihii ayaa wax la cunaya oo la seexanaya oo la soo kacaya oo wax la cabaya oo magaranaysaa noloshiisa uunan ilaawin. subxaan allah. abi aalib waa gaal, haddana dardaarankii aabbihii ayuu ilaalinaya. allahu akbar. nebiga sal alla alay wasalam intuu gacanta soo qabtay ayuu la yimaaday meeshii magaranaysaa ay joogeen oo kacbada ahayd, reer quraysheed magaranaysa ay joogeen oo kacbada ahayd. dhallinyaradiina midba midkii lagu amray ayuu gadaashiisa la istaagay birtii isagoo oo qarsanaya. allahu akbar. seef hadduu dhiibi lahaa, seef macnaheeda waa dagaal seef macnaheeda, laakiinse bir ayuu u dhiibay. allahu akbar. xigmadda abi aalib ayay ka mid ahayd. abi aalib wuxuu soo istaagay isagoo maxamed sal alla alay wasalam gacanta haya, ayuu soo istaagay kacbadii, soona hor istaagay dadkaas oo dhan. markaasuu ku dhahay yaa quraysh, ma ogtihiin waxa aniga ii diyaarsan iyo waxa idinka qarsoonaydaan ogeyn? markaasay dhaheen maxaa naga qarsoon oonaan ogeyn? markaasuu ku dhahay yaa shabaab. markaasay dhallinyaradii mid kasta birtiisii ula soo baxay, mid kasta abulahaba, abujaahila, weliid ah, gadaashooday eegaan mise waxay arkaanba bir madaxiisa ka weyn. allahu akbar. bir madaxiisa ka weyn ayay arkaan. markaasuu dhahay abi aalib, wallaahi haddii aad isku daydaan in aad muxamed u soo dhowaataan ama dilkiisa aad qorshaysaan, wallaahi waxaa loo kala baxayaa quraysh iyo reer bani haashim ayaa loo kala baxayaa oo dagaal caadiya ayaa magaranaysa dhacaya. subxaan allah. marka qurayshi halkaasna waa ay ku fashilmatay. nebiga sal alla alay wasalam wuxuu ku dhahay abi aalib marka orod gurigaaga aad. gurigiisu aaday nebigu sal alla alay wasalam. abi aalib waxa uu sameeyey, dhallinyaradii ayuu soo ururiyey, wuxuu ku dhahay raggani waxay rabaan in ay nebiga dilaan sal alla alay wasalam, maxamed inay dilaan. soo dhallinyaray buurta fuula, qaarkiin buurta ha fuulaan, qaarkiin shucub waxaa la dhahaa labada buurood, yacni maka waad aragteen kacbada waxaa ku wareegaysan buurba buur bay kasii dambaysaa, buurba buur baa kasii dambaysa. subxaan allah. kadib shucub waxaa la dhahaa labada buurood magaranaysaa dhexdooda wadada yar ee marta ee ay dadku maraan, qaarna halkaa ha istaagaan buu dhahay. subxaan allah. abi aalib
muxuu guuleynayaa xaqa ayuu guuleynayaa sababtoo ah dardaarankii aabihii ayuu ilaalinayaa subxaan allah waa gaal laakiinse xaqa ayuu guuleynayaa maanta imisaa ma garanaysaa inaga mida nebiga horteena lagu hor aflagaadeeyaa ilaahay wax lagaga sheegaa hortooda aayaadka ilaahay qur'aanka wax laga sheegaa axaadiista nebiga wax laga sheegaa subxaan allah oo inaan arrintaasi waxba ma garanaysaa inaga dhimin waxba inaga dhibin subxaan allah wallahi waa nasiib darro wallahi waa nasiib darro in nebigaaga iyo aayaadka ilaahay iyo allah subxaanahu wa tacaala hortaada waxun lagaga sheego adigana aad iska aamustid wallaahi nasiib darra ayay ku tahay abi aalib waa gaal xaquuna guulaynayaa nebigana wuxuu u diidayaa inaa agtiisa lasoo maro subxaan allah waxaa jirtay 9 jeer ka badan ayay isku dayeen in ay dilaan nebiga sal allahu alayh wasalam reer quraysheed fudayl nin la dhihi jiray ayaa waxa uu dhahay ma garanaysaa waxaan go'aansaday ayuu dhahay in aan nebiga kow ka siiyo subxaan allah 9 jeer ka badan ayaa nebiga laisku dayay inaa la dilo fudayl wuxuu dhahay waxaan go'aansaday inaan nebiga kow ka soo siiyo dhagax weyn baan soo qaato halkaa laabtan soo gashtay buu dhahay subxaan allah markaa nebiga u soo dhowaaday ayuu nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu igu dhahay ya fudayl maxaad wadaa markaasuu dhahay waxba nebigii ilaahay waan dikriya adkurullah subxaan allah alxamdulilah markaasuu ku dhahay nebigu sal allahu alayh wasalam fudayl baa ka sheekaynaya wuxuu leeyahay wuxuu igu dhahay nebigu sal alay slam soo dhowow markaan u soo dhowaadayna laabtayda ayuu gacantiisa saaray shariifka ah subxaan allah markaasuu igu dhahay yaa fudayl ittaqi illaah fudaylow alle ka cabso allahu akbar fudayl wuxuu dhahay arrintaasi wixii ma garanaysaa go'aankayga ahaayoo dhan way burisay waxaanan meeshii ku dhawaaqay iyadoo oo qalbigayga ay ka soo go'day ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulullah subxaan allah mar kalena waa kii ma garanaysaa khaybar iyo yuhuudii khaybar waa kii intay casuuntay naagi ma garanaysaa nebiga sal allahu alayh wasalam waa tii sun ugu dartay ma garanaysaa hilibka waa kii ma garanaysaa markuu asxaabada ka mida markuu hilibkii goostay waa kii halkii naftu ay kaga baxda dhintay nebigana isagoo afka ku haya hilibkii ayaa waxa ma garanaysaa ay mataqaanaa hilibkii ayaa hadlay oo dhahay sun ayaan leeyahay ha iliqin subxaan allah nebiguna sal alla alay wasalam marka uu sii dhimanayey wuxuu dhahay suntii ay naagtii berigii isiisay xanuunkeedii ayaan dareemayaa sidaas awgeedna nebigu sal alla alay wasalam shahiid ayuu ku noqday oo suntaas awgeed ayuu u dhintay ayaa la dhahaa oo waa uu shahiiday allahu akbar nebigeennu waa shahiid waa uu shahiiday isagoo oo furaashkiisa iyo dhabta xaaskiisa caaisha radia allahu tacaala canha waardaaha ku dul jiifa allahu akbar marar badan nebiga way isku dayeen in ay dilaan laakiinse way u suurtoobi weyday waxaan isweydiinay bay ahayd su'aal ahayd najaashi muxuu ugu soo diri waayey ciidan nebiga sala allahu calayhi wasalam guuleeya sababtu waa hal mid keliyata sababtoo ah reer qureysheed waxay dhihi lahaayeen ninkii abraham kacbada isku dayey inuu dumiyo ayuu ma garanaysaa ciyaalkiisii iyo ma garanaysaa dhashiisii u dirsaday gargaar annaga oo meeshan joogna soo maaha uu rabaa inuu annaga nagu dilo haa markii horeba waan ogeyn inuu ninkan wax khaldan waday unan wax wanaagsan wadin allahu akbar hadda waxaan rabaa in aan ka sheekeeyo jacaylkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo khadiija radia allahu tacaala canha wa ardaaha maalmaha ka mid a fatxu makka markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam furtay waxaa timaaday inaan hadda ka hor ka sheekeyna allahu yaclam ma garanayo laakiin qisadan waan jecelahay nebiga sal ly slam markuu maka furtay dadkii ciidankii oo dhan oo meesha taagan iyada oo la mashquulsan yahay subxaan allah ayaa nebigu islaan gabowday buu meel ka arkay markaasuu u tegay islaantii markaasuu gu'iisa intuu iska siibay dhulka dhigay subxaan allah markaasuu la sheekaystay markaasay xoogaa markay wada sheekaysteen buu nebigu sal alay wasalam qoslay dhaq caaisha halkaasay taagan tahay way daawanaysaa arrintu dhashay subxaan allah nebigu sal alay wasalam iyo islaantii cajuuzadda ahayd way wada qosleen haddana xoogaa sheekadii markay sii yaro wateen nebigu sal allahu alayh wasalam waa uu ooyey iyadiina waa ay oyday allahu akbar markii laga soo noqday ee uu nebigu sal alay wasalam madiine ku soo noqday ayay caaisha weydiisay ay ku tidhi islaantaasi yay ahayd waxaase ku hadlaysayna marna kaa qosliyey marna kaa oohiyey maxay ahayd markaasuu nebigu sal alay wasalam ku dhahay islaantaasi waa saaxiibadii khadiija waxay isoo xasuusisay maalmihii khadiija allahu akbar markaasaan qoslay haddana waxaan xusnay dhimashadii khadiija markaas ayaan ooyey
markaasay caaisha way hinaasto waxay tidhi khadiija baad ku hadlaysaa xitaa yaa rasuulallah kumayna dhin yaa muxamed bay ku tidhi khadiija umaad ilaa maantao dhan aad leedahay ilaahay wuxuu ku siiyey khayran minha oo aniga ah mid ka khayr badan oo aniga ah markaasuu ku dhahay nebigu sal alla alayh wasalam may uu kacay nebigu uu xanaaqay wuxuu dhahay no imuuna sinin mid ka khayr badan waayo waxaan ka helay wiil kayrkeedna wiil ilaahay igama siinin waxaan ka helay in ay igarab istaagtay mar dadka oo dhan iga soo horjeedsadeen subxaan allah markay aragtay caaisha inuu nebigu sal alla alayh wasalam isbedelay ayay tiri ilaahay dembi dhaaf ii weydii nebigii ilaahayow markaasuu ku dhahay la kuma weydiinayo ilaad adiguna khadiijo ilaahay u weydiiso dembi dhaaf allahu akbar markii bay sidii samaysay allahu akbar jacaylku sidaas ayuu ahaa khadiijo iyo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyada oo dhimatay markii khadiija dhimatay 2 sano kadib ayuu nebigu sal alla alay wasalam guursaday 2 sano dhan waxba muuna guursanin nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasay gaalada nahayaan muxamedkii gabdhaha badnaa muxamedkii dumarka saan ahaa muxamedkii wax aanan magaranaysaa sal iyo raatoona lahayn oyna nebigeenna ku dhibi karaynin waxbana kaga qaadi karaynin taariikhdiisa quruxda badanna aynan ku bedeli karaynin subxaan allah ilaahay ayaa mahadsan waxaan ku joojinaynaa intan muuqaalkan insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan sii wadana waan jeclaan lahaa waxaan halkan ugu joojinayaa sababtoo ah wakhtiga oo nagu yar awgeed waanan jecelahay waanan ogahay in aad rabtaan muuqaal intan ka dhaadheer in aan soo geliyo youtube-ka laakiinse insha allahu tabaaraka wa tacaala muuqaalkan markaan iminka aan soo post gareeyo aan idiin soo gudbiyo ka ku xiga insha allah wuxuu noqon doonaa muuqaaladii kan ka horreeyey ee 11ka ahaa oo dhan in aan intaan isku wada keeno macalka ku xiga intaan isku wada keeno in aan iyadoo hal muuqaala 3 saacadood 4 saacadood ba ha socotee iyadoo hal muuqaalo isku wada dhex jira aan idiin soo gudbin doono biidni illaahi jalla jalaaluh ilaahay dembiyadiina ha dhaafo miisaanka xasanaadkana ha idiin saaro siiradan aan ka sheekeynaynaa ma aha wax dhayaldhayala ma aha filin kartoon ma aha entertainment waxa weeyaan siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan siiradii ninkii qof adduunkan soo mara wejiga adduunka qof soo dul mara qofkii ugu khayrka badnaa siiradiisii weeyaan taan ka sheekeynaynaa allahu akbar ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu dembiyadeenna dhaafo inagana dhigo kuwa nebiga sal allahu alayh wasalam ku dayda ee waddadiisa raaca allahumma aamiin ilaahayna iisoo barya iina soo duceeya insha allahu tabaaraka wa tacaala in ilaahay ma garanaysay waxaad doontaan iigu soo duceeya ducadiina un hayga ilaawina insha allah hore u socda ku saliya nebiga xilligay idiin tahay oo wedwidhi oo nuuri oo dhalaali oo soo wigleen oo sii wigleen oo soo socon oo sii socon weydinkaste خير بدن إن شاء الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين نور كي دوني دايفيو نحاريس نبذكر كاجي أهاتي ربيكي كونك أبوري رسول بو أمديس وصديري بوهنونك لا دوناي بشارة وياني مهد الله أسقناتي